واكو سلام قدر وسيت حالتك كورن محايسا ان وحاواي وادرنا الحمد لله ونبت يميت حتى نسوق حي ما شاء الله ورتقو عن في حنا قادتي marka waxa soo dhan laga soo tago maalinka ay ugu dhahday shaadiyo bil ramadaan waaye ilaahay ku musdarnaada in xaaskayga matiid isma qabno isaan waaye inta waaye oo wax walba oo ku hadlaysay just adi wax walba iskaga hadlaysay laakiin ana meel ku qoranahay ma fahanti qofka markuu ku jecel yahayna oo dan iyo wax iska leeyahayna waxyaabaha qaar sida hadda inaad xaaskayga oo kale iyo tusaale ahaan uma soo qaato ma fahmaysaa okay aniga ma rabin inaan ku dareensiiyo maalin aqoraal hadda ii soo qortay aan ku soo qoray anigu aan gaaray sababtoo ah aniga waa isfahmi weynay mar walba buuqa taagan just marka waxaan dareemay inuu xaggayga cilada xaggaaga tahay oo haddana pressure dhanka xaaskaaga ah oo ay ani xaggayga ay kugu saartay okay ani adiga waa isla joognay bil kaamil 120 bari isla joognay wax walba naga dhaxeeyay wax walba dhaxmaray iguma aadan dhiin shaadiyoyn saani wax jiraan aniga isla joogno is ag jiifno wixii oo adina dhaxmarna adi bisa og okay ina ani kugu dhagaadlo maanta oo aniga maxaa la sheekasiga wax micnana iima keenayso adiga iska badaawo qof oo ixtiraam oo madax korkiisa saarnaa tahay dadka adduunyada aan ugu nacba xataa weligii kuma aanan dhagaadin qofka ka baxsan waayo oo idiba ma ogi ma fahmaysaa tan kale mida ka iloobay hadalkan ayaan kugu badanin aboowe mida ka iloobay waxay ahayd qofka ku jecel amba qofka adiga aad jeceshahay fiiri safar aha waxaan ku dhahay qadar waa bixirbaay kaalay ina kul shay kasta u baahanahay laga yaabo in aadana tayna wax kale iska dhaadhicisay abina iska dhaadhicisay ina wax wada sameysaan wax nidi in dhaxmaro